salaamullaahi calaykum daawadayaal halkaad nagala socotaan waa wargal media. wararkan idiin hayna waxaa ka mid ah wasiirada Jubbaland oo laba u kala qaybsamay iyo khilaaf xooggan oo soo kala dhexgalay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi oo iska diiday dalab uga yimid madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagjar oo rabay inuu tago magaalada Hargeysa iyo urur goboleedka IGAD ay gaarsiiyeen dowladda federaalka Soomaaliya dhaqaale ay ugu talagaleen in lagula dagaalamo cudurka COVID-19. xubno ka tirsan xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa baaq nabadeed u diray beelaha ku dagaalamaya degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. ciidamada Gorgor iyo Haramcad ayaa maanta waxa ay xireen xuduud beenaadka u dhaxeeya dalkeena Soomaaliya iyo waliba dalka Kenya. iyo waliba ciidamadaasi oo amar lagu siiyay inay soo qabtaan degmada Dhobley iyo deegaanada ku xeeran taasoo laga cabsi qabo inay dagaal halkaas ka dhaco. qaybo ka mid ah gobolada Soomaalida ay degto ee Kenya ayaa laga soo sheegayaa in laga helay cudurka COVID-19. dalab lagu wareejiyay dowladda Soomaaliya oo la geeyay magaalada Muqdisho qalabkaas oo loogu talagalay in lagu la dagaalamo cudurka COVID-19 iyo waliba Mareykanka oo maara ula cudurka COVID-19 dalbanayana in Shiinaha uu ka caawiyo la dagaalanka cudurkaas. ku mahadsanid daawashada iyo